dhibaatooyinka mujtamacaasi Soomaaliyeed haysato oo aniga aragtidayda ugu horeeya aljahl bixaqaa'iq diin wa bil hayaa mujtamaca waxyaabaha ugu badan aan u arkayo haystaa uu yahay jaahilnimo ka haysata diintii ay rumaysnaayeen xaqaa'iq badan oo ay leedahay waayo siyaabaha qaarkood looma dhaqmeen haddii xaqaa'iqda aynu sheegaynay diiniga si fiican loo fahamsan yahay nolosha guud ahaan baan leenahay way ka dhacsan yihiin oo jahla kaga sugan xataa tacliimkii isticmaalku uu keenay aan odhan karno 20 sannadood buu dib u sii dhacay oo waa sii lumay waa mujtamaca dhibaatooyinka haysata qadaayaadka daakhiliga bay ka mid tahay waxaa ka mid ah furqada iyo tashatudka burburkan iyo kala duruga kan iyo ishaysiga kan oo magaalo yaro kasto maanta wadanka Soomaaliyeed ku taala ta ku xigta inay ka goodaabay jeceshay ama ka durugto inaanay waxba la wadaagin burburku xad buu gaarsiisay taasubaadka qabaliga oo qabiiladan loo taasubayo aad dib ugu soo noolaatay wadci غayru caadiyana runtii gashay xad uu gaarsiisay reerka Soomaaliyeed inuu ku qanci karo reerka kale si hagardaamo loo gaarsiyo haddii gaal la heli karo in la adeegsado ma aha reerka Soomaaliyeed soo isagu wax u qabsado woogi isaga inaan kani waxba u qabanaynin laakiin waxa uu rabaa uu ka ku xiga si hagardaamo loo gaarsiyo buu gaalka u adeegsanaya ila hada alhad ayuu joogaa qofka Soomaaliga ah aad moodo inuu rumaysan yahay dad badan oo kamidi noloshuba inaanay suurtagal ahayn haddaanu ximaayo qabaliye helin reer haddaanu hoos gelin ay fududaatay divide and rule in lagula dhaqmo oo mabda'i fircawn markuu rabay dulmigiisii kama dambaysta inuu sameeyo ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa waja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan min dadkii wuxuu ka dhigay kooxaba ilaahay yiri dabeetana koox ka mid u gumaysanaya kooxa kalena kor baa loo yara qaadaya waa falsafadii uu fircawn wax ku gumaysan jiray waa falsafadii isticmaaradii ka dambeeyay divide and rule ay ku gumaysan jireen ummad lama gumaysan karo in iyada la jijabiyo mooyaane waa inaad iyada burburisaa oo dabeetana marka aad burburiso dacaladeeda yar qaybana aad kor u qaadaa si ay ku taageeraan ama aad saga dhigto inaad wax siinayso qaybana marka aad tuntaa si ay u duloobaan oo cagtaada ay u hoos geli karaan qabaa'ilka Soomaaliyeed waxay noqdeen marka waxa ugu fudud ee cid kasto mustacmari adeegsan karto in Abdullah Xasan iyo dagaaladiisii baa loo adeegsaday kuwa ka dambeeyay loo adeegsaday dawladda Soomaaliyeed iyo burburkeedii baa loo adeegsaday maanta iyo nolosha ku noolyiin baa loo adeegsanaya just what divide and rule qaybi dabeetana burburi marka aad burburiso kolba qayb ku tumo natiijadii ka dhalatay muuqataana waxa weeyaan in mujtamac fawdawi uu soo baxo bulsho fawdada ama anarkiga nidaam la'aanta kala daadsanidu uu salka yahay waa wax xidhiidha oo ay leedahay jirin kala daadsanidaasi waa fi kulli shay ma aha meel qura markaad ka qiimayso mararka qaarkood waxaad soconaysaa mala wuxuu nabad galayba way yaryiin wax kasta way kala daadsan yihiin tacliin caafimaad idaarad maamul aqoon wax kasta oo aad soo qabato waxaad arkaysaa isagoo filiq uu ka tira batay intaasi waa wadcigooda gudaha suura kooban haddaan ka bixiyo oo ay iga wada aqoon badantii wadcigooda khaarijigiina wuxuu yahay inaanay haysanin cid muciina oo dabadeed oo u gargaaraysa nidaamka isticmaariga ee Mareykanka ee imbaraatoriyada Mareykanka ee cusub ee dunida ku tala jirtay inay gumaysato waxaad moodaa inay Soomaalidu aanay gargaar ka helin ay ka heshay bam iyo garnayl iyo qumbulad iyo wax lagu garaaco dad masaakiin oo xoolo raacda waan cidnaba ogeyn meel gawaana iskaga nool oo aan duniba xidhiidh la lahayn in B52 iyo wax la mid ah lagu tumo oo lagu garaaco
inaanu jirin nidaamkii aqtaabta ama dacallada badan dunida lahaan jiray ee qolo marka laga yar xanaaqo qolo kale loo xanaaqi jiray ee nin quri uu saytareeyo isagu dadka uu ka taliyo waxay noqotay Soomaaliya wadciga khaarijiga marka la eego meel ka mid ah dunida meelaha nafaayaadka dunida lagu aaso sumaha dunida ka soo hadhiya qashinkeeda shirkadka maafiyaadka caalamiga meelaha ay u baac mushtargeeyaan ee markaas si loogu aaso ama xeebahooda ha lagu daadiyo ama gobolada qaar ha lagu aaso waxay noqotay Soomaaliya meel hantideeda bad iyo bariya wuxuu doonaba ha noqdee tuuga iyo booba lagu qaado wax la boobo oo xoog lagaga qaado oo maraakiib rarato iyo wax la xado oo tuuga lagu xado loola dhaqmo waxay Soomaaliya joogtaa wadci taliska xaqiiqiga ee wadanka uu ka jira uu yahay isticmaalka marka laga yimaado NGO wax la yiraahdo ama NGO-yada caalamiga UNICEF UNICA waxa la sheegay uniga ah noqdaan ama NGO yarar loo kale oo yana kuwa ka sii hoos shaqeeya ha noqdaan wadciga mujtamaca caafimaadka tacliinta dhaqaalaha wax kasta waxa maamula haddii bakeeri la rabo in kor loo qaado ka tuulada jooga waxa dhay NGO-yada inoogu yeedha dabeetana shan NGO baa loo imanaya waxa la leeyahay waxaasaan u baahanay waxaas laga jabay waxaas baa saan noqday waxa baa saan noqday dawladda xaqiiqiga ee ka jirta meesha waa NGO meesha doonto tag ee wadanka ka mid ah oo iyana ahdaafdooda iska wata yani waxyaabaha NGO-ga markaad aragto qaabka u dhaqmaya waxa la odhanayaa polio carruurta laga tallaalayo polio baa ka socda bal polio aan dhammaanayn arag oo maalin walba 900 oo qof oo shaqaalihii galayaan shaqaalaha booliyada tallaala ma taqaanaan waa kuwa hawdka ka yimi nin hawdka ka yimi oo maanta magaalada soo galay oo soo shaxataga ama ciidoonii madarkiisa barito inta loo xidhay maray yaro cadoor korosale waar $5 baan maalintii shaqaysanaya dadkan tallaalaya indhahaygaan saaray yani mid ay baadiyeyntu ka yimi weligii meel caafimaad lagu hayo daayaan weligii wax qorin caafimaadka kaaleyaan waxna qorin waxna akhrinin oo inta maray yaro cad loo galiyay tuurta xambaarsan oo le booliyaan tallaalaya oday miskiina inta loo tago oo laba carruur ka jiifta ama laba kanaaca ka haysto ay leeyihiin kuwa caafimaadka qaba soo dareer kuwaas tallaalo isna leh waar kuwani waa caafimaad qabana kuwan baa sakaraade mid kiniina ama mid aspirina ama wuxuuniga siiya leh ayana leeyahay may waxa ma sidna anaga shaqadaydu waxa weeyaan kuwa caafimaadka qabaanu tallaalaynaa keen odayga ama galgalanaya ama carruurtii badgalgalanayso booliya laga tallaalaya la leeyahay mashaariic la tantahi inteeda badan yaanay wax faa'iido ku jirin